وريا سو عرر قصة جعيل أو حنون بدن أو إنك إلمين تسين دون طبعا مات إنك قش يكينيا أو دت كان قصة بصراحة هذا إنك صور بحي مرة بدن أفهم ويسن أنا قصة ده إنك دبجيني السود وهذا قبيل هرت إلهي هنجم ذوبي إلهي بان كبرينا قبيل إنه جس نوضع فيه قصة عن قبيل كمان توحو جيستي اللي بعتدو جيستي بقى إنك دبجيني اوكي لبدا gabdhood sida u kala garataa magacyadooda waxaan ku kala qorayaa Mario gabadha najax baa la dhahaa gabadha la aroosay oo aroosada hadda najax baa la dhahaa gabadha kalena Maria baa la dhahaa اوكي ناس caana bay qisadan ka dhacday gabadha Maria ah waxay isjeclaayeen wiilka magaciisa codku ku duubnaa waa maqli waay wiilka magaciisa ma garanayo wiilka waxay isjeclaayeen Maria wiilka jacayl baa ka dhaxeeyay oo social media xada dadka badan isku ogaayeen laba qof oo saaid isku jecel oo dhalinyaro bay ahaayeen labadii qof ayagoo saaid isku jecel wiilka reerkooda u tagay wuxuu yiri gabadhaas arbaa aan jeclahay in la igu daro reerkooda waxay dhaheen maadaama gabadhu ma dhimaan weeye wiilkuna waa daarood reerku waxay dhaheen de anagu isma guursan reerkaas mana guursanaysid gabadhaas annaga gabar kugu dareena reerkii isla markaas sidoo wiilka iyo gabadha isku la baxsan isla maalintaas bay waxay abaabuleen gabadhii wiilka gabadha hadda aroosay oo najaxa in lagu daro oo isla arooskii iyo meherkiiba laga dhigo hal maalin gudahooda sidaas arooskooda ku dhacay arooskooda markuu saa ku dhacay gabadhii Maria ahayd guriga isku soo xirto qolbay ku xiran tahay baa la dhahay oo ka dhaxooyaysa ilaa hada because adigu waa dareemi lahayd adigoo qof aad isla socoteen oo isjeceshiin waliba jacaylka dhalinyarnimada aad buu xanuun badan yahay oo aad ku heshiisaan inaad isguursataan oo meeshii aad u dhahay familkayga u soo sheegaya aad ka sugayso familka inay isku kiindaraan aad ku warheshid asaga iyo loo aroosinayo xanuunka aad dareemi lahayd bay dareemaysaa ilaahay qalbiga u qaboojiyo gabadhaas waa gabadha yartaa sida u qurux badan wiilkaas wuu ku qanacsanaa wuu jeclaa ayadana way jeclayd waxa gabadhaasay tomaantay guri ugu xiran tahay oo u ooynaysaa ma ahan ayadu waxay isku geysatay ma ahan sharaf la'aan ma ahan isheeg maxay hayto isheeg foolxuma ay qabto ma ahan diin la'aan ma ahan kaliya waa maxaad uga dhalatay reerkaas bay maanta ciqaabta u maraysaa maxaad reerka uga dhalatay ciqaabteeda bay guri ugu xiran tahay oo ciqaabta u maraysaa maanta 2026 iyadoo la galaya maanta laba qof oo dhalinyaro oo isjecel wiilkaasna xaq darra laga galay because asaguba uu dareemaya xanuunka ama aroos ama haroosin qofka jeceshahay uu dareemaya gabadhii qisadan iga sheekaysay waa gabar iyaga u dhow oo saaxiib la ah magaceeda ma raba inaan sheego waxay iga sheegtay wiilkaas iyo gabadhaasayto laba qof oo iska jeclaa dunida inaan la keenin waxay ii soo dirtay oo aan arkay qoraalada isku qoreen codadka isku duubayeen ballamihii labadooda wada galeen oo qof kasta geeskiisa u galay baan indhahayga ku arkay haye halka waxa iiga cad oo aan maanta wiilka dambi dusha uga saareen gabadhaas inuu ballan ka qaaday oo na jeclaa laakiin ballantiisa waxa ka weynaatay ballanta familkiisa xataa lama siinin waqti uu ku soo fakaro xataa lama siinin go'aan uu ku cararo hal